waddanka Soomaaliya biyaheeda dad kaleeta iyo badeeda dad kale ma qaadanayaan waddanka Mareykankana kuma taageerayo dad kaleeta in annaga ayna dhacaan marka taas ka seexda reer Minnesota gabadhii Congress u dirsateen way idinka war haysaa sidaad idinka u dareemaysiin dantaas ay u dareemeen madaxweyne Xasan Sheekhna waxaan leeyahay waan kugu faraxsanahay shaqada fiican aad qabatay in dadka Soomaaliya iyo dadka meel kasta ku nool aad dareensiisay si kasta anaga aan u dhibanahay Soomaali hadii aan nahay waxaan nahay dad karti leh ayaan dhaxdaas markii aan maqalnay in qaar Soomaali ah ama Soomaali sheegato in Ethiopia ay la galeen ما بقى أنا في الصومال وحلو قوله agreement هشيس محمود نور هذا أنا كصومالي قبضي صعب معها مدن مدحوينه حسن شيخ صومالي أياد مدحوينه وتهاي هل صومالي لا بيلي هذا ولنا أروح ما نركن ميلاد مصورات تهاي إيجار حال النقاء والله أنا نركن ميلاد مصورات تهاي على كبلوج أمل ومصورين هنا ما نركن أنا ومركا عقلي جاي مركا كاشدو waxbarashadaydii waddanka Ingiriiskana aan ku noqdo waxaan isweydiinayaa waxaan loo sheegaya adduunka iyo anigii oo ground jooga faraqa u dhaxeeya boorama waan aaday sanaag waan aaday meel kasta waan aagay yani waxaan isweydiinayaa Soomaaliyada la sheegaya halkay ku taala halkan Soomaaliland baa la yiraahdaa calankana ka taagan Xasan Sheekh Shariif labadaba gacantayda ayay ku soo dhawaayay magaalada Bristol anigoo ku ixtiraamaya wasashkooda soo dhawaada anigoo ku ixtiraamaya jaaliyada iyagu ay matalaan ee anigu aan xildhibaan u ahay ee aniga iyo codeeya ee iyaguna ay matalaan sanadkii ugu horeysay xildhibaan noqday inaan saaray calankii Somaliland 18 May dagaalkii igaga bilaabmay halkaa ee Soomaali weyn igu qaaday dagaal la mid ah weligay ma arkin waxa waraaqa loo qoray meerkii magaalada taliskii booliiska ee gobolka dhan South West England haystay ashkata badan baa la fidiyay waxa la yiri xildhibaanada cusub ee hibaaq ee Soomaaliyada ah Soomaali ayay kala qaybinaysaa waxaan idhi Soomaali sidaan u kala qaybiyaa halkan Soomaali ku kala qaybiyaa waxa la igu yiri may Somaliland way kala qaybinaysaa waxay sidataa calankan ayay doonaysaa xarunta dawladda ee ay xildhibaan ka tahay inay ka taagto hadday ku guulaysato inay calanka ka taagto meesha xildhibaan ka tahay Soomaali ayay kala qaybinaysaa waxaan kaashaday ilaahay asxaabtay taageerayaashay waanu ka shaqaynay waanu ku guulaysanay calankii Somaliland waanu ka taagnay Bristol dadkii Soomaali weyn aaminsanaa halkaa cadho weyn ayay iga qaadeen cadhada weyn ee ay iga qaadeen halkaa may joojin sanadba may nasan ay isku dayeen inay niyad jabiyaan ay isku dayeen inay siyaasadayda ama kariyerkayga ay dhaawac gaarsiiyaan inaanay u suuragelin oo 10 sannadood aan xildhibaanad ahaa 6 doorashana aan ku soo guulaystay waxaan taa ku darayaa kolley waad garanaysiin inanta senatorka ah Congress-ka fadhida Ilhaan Cumar khudbadeedii waad dhagaysateen meelo badan ayaa laga soo saaray kelmaday tiri ayaa weli aniga dhagahayga buuxaysa Soomaali isku sheeg dad badan oo Soomaaliland waxay yiraahdeen xildhibaan hibaaq kelmadda ay tiri waxaan doonayaa inaad ka jawaabtiin runtu waa muhiim haddaad halkaa wax ka sheegtid ogow hibaaq baa halkan joogta iyadoo runta sheegaysa caawa ka jawaabaya mid weeyaane Ilhaan mar haddaan toos kula hadlo maalintii lagu doortay ee ugu horeysay aad soo baxday anigu xildhibaanad baan ahaa waan ku hambalyeeyay buugga Facebook-ayga waad arki kartid maalintii aad soo baxday waan ku hambalyeeyay message qurux badan ayaan qoray haddaan ogaa maalintaa inaad maanta odhanaysid dad baa jira Soomaali isku sheega
dibaan loo noqon lahaa balyeyntaa waayo haddaynu labadeennaba xildhibaan nahay oo labadeennaba aynu xildhibaan ka nahay dalal aynu ku tagnay inagoo qaxoonti ah number 1 waxaa inoo ah kursigaa aynu ku fadhino xilkaa aynu hayno haddii aanaynu qof uga faa'iideynaynin haddii qof aanaynu farxaddiisa ku raadinaynin inaanaynu cidna waxba ku yeelin waxbaa lagaa qaadi kari waaye waa lagu joojin kari waaye waa lagu horstaagi kari waaye haybtaada iyo isarkaaga ayaa markaa la rabaa in shaki la geliyo shaki bay gelaysaa ilaahay baa soomaali naga dhigay soomaali baanu nahay waanu ku faraxsan nahay alxamdulilah rabbilcaalamiin qof yaroo inagu yidhi soomaali isku sheegna waxba inaga qaadi maayo wuxuu iftiimiyey uun horumarkaynu gaadhnay